وقرد بيقاسو هدي لك لقرد يا غريب يا قصحي وقرد بيقاسو هدي لك لقرد يا غريب يا قصحي بسم الله الرحمن الرحيم مقعيقي oo ah Safiya Xuseen Maxamuud joogta Belgium muddo 5 sano ku nool intaasna diidmo iyo negative badan igu dhacday waxaan ka hadlayaa aniga hadda ahaantayda baasaboor Soomaali soo cadeysa la yiri baasaboorka inaan heli karin inaan lacagtiisa heli karin Soomaaliya tahay tag soo toogsa amal la yiri laakiin haddaan tagan kulleed kama weynaa laakiin dhibaato ay haystaba 5 sano wadanka qofta joogto oo la diiday way dhib badan tahay safaarad dawladda dalleena in loo doodo xuquuqdeena ee naga siisa u baahan anaga xaq ku yeelana Belgium safaaradda ayaan tagay waxa la yiri 300 lacag lagu suubinaa hatta lacag yar qiimatana sanad ka maqnaanay hatta ma lagu soo jawaabayo marka wax sanad maqnaanay waxa ka wax bariyo maqnaanay Soomaalinimadan waxna lagu siiyo Belgium waa ku rafaadnay wadankeena dagaal ka socdo ma jirno wadankan wax kuma haysano aniga hadda negative badan haysta ilaa haddana waa u baahana hatta inay wacdo waa rabaa safaaradda ila soo xiriirto Safiya Xuseen Maxamuud la yiraahdaa Antwerp banaan qod ka jooga fakas u soo qaata kaaman ku jira marna waa lay buriyaa marna kaaman lay ugu xiraya waa rafaadsana waa daala dhacay 5 sano aan ilmahayga arkin baasaboorkaasna aan dib u qabaa hilow sharciga la siinaa baasaboorkaygu ku xarbeen ma baahan bosh hada baasaboorkan sharci in la siinaa lay ballan qaaday 300 oo hadaada ka haysan waxa leeyahay waa ma helaysid ana 300 iska daay 7 eera isbuuc qaataa isbuuc 7 eera qaataa marka 300 ma keeni kari ma heli kari man ku tala jir inaa helo hadii safaaradda ay wax qabanayso ha ay wacdo lambarkaygan reebaya ha ay wacdaha ii suubiso umada dhan culayska ka qaado Belgium culays weyn baa saaran oo safaaradda xageeda Soomaalidu ma soo caday dad xidka aada dad Soomaali aada dad baasaboorada u baahan intaba ariga dadka seemanna wax noo kala jecel yahay ma jirto safaaradda way adkaysa waxa culayska ka qaado umada u naxariisato magacaygu horta waa Xuseen Daahir Xaashi waxaan ku noolahay dalka Belgium waxaan rabaa inaan dul istaago waxaan soo arkay hore u soo arkay iyo wax maanta socda wadankii 1991 ay ugu dambeysay November iyo December baan ku noqday Muqdisho meesha ku noolaana Muqdisho way Soomaalidu way iskala saartaa laakiin anigu Hargeysa ka soo jeeda Muqdisho ka soo jeeda Boosaaso ka soo jeeda Kismaayo ka soo jeeda meel aan ka soo jeedin male yaani taa waxaan ka wadaa waa dhalasho intaaba dhalasho iyo bahnimo baan ku leeyahay kolba safaaraddu way isbabadishay haatana intii ugu dambeysay xilli baa ugu dambeysay Nuur Cadde joogay way saragnay Nuur Cadde Allahu naxariisto way isku aragnay nin dambaayay mid way isbabadishay nin deegaan ah oo sharci runtu markii loo hadlo dadka sharci la'aanta ah ee Soomaaliyeed ee maanta dhibaataysan ee Yurub iyo Ameerika iyo Scandinavian-ka dhinac walba ku dhibaataysan oo marayo safarka bay horta dan u tahay gudihiina waa wada qusaysaa haday dibadda tahay iyo haday gudaha tahay labada waa qusaysaa way dad Soomaaliyeed meeshu joogo waa ka qusaysaa dhaqaalaha haday tahay arin haday tahay wax qabasho haday tahay sharci u sameyn haday tahay intaba waa ka qusaysaa marka kolba intaan ka warqabo dadku waxay ka cabaadayaan kordhin lacageed marka hore waxay noo ahayd baan u maleynayaa xilligii Nuur Cadde 60 konton waraaqda wax lagu sameeyo Soomaalida bay ahayd inay ugu dambeysay hadda waxaan maqlayaa 180 150 160 wax noocaas ah waan laga yaabaa dadka afkaaro ama siyaabo maaragtay yaani runtii dadkaas dhibaataysano waxaysan awoodi karin waxaysan ka bixi karin ma oran karo wax may qaban laakiin wax qabadka mid dibadda iyo mid gudaha saameynteeda waxa leh mid gudaha بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ما بعد magacayga anigu ah Jamaal Caraayi Maxamuud waxaan ka hadlayaa dhibaatooyinka
lagu qabo safaaradda Soomaaliya ee ku taala Belgium runtii cabashadeeda maalinta ka dambayso isoo taraysa waxaana moodaaba in macnaha ay noqotay tusbax furmay oo kale cabashada inay noqotay marka waxaan dhihi lahaa anoo ka codsanaya madaxda dawladda federaalka Soomaaliya safaaradda Soomaaliya oo matalaysa qaranka Soomaaliya matalaysa in maanta lagu hoos qasho shacabkii dawladnimada taageersanaa iyadana waa ayaan dar aad u weyn oo ku taala leh oo joogo shakhsi oo aan haddii si kasta u cabtaan xataa shacabkii aan dheg jalaq u siinaynin oo dantiisa ka wata aad mooday inuu yahay nin soo shaqo tagay waayo saan garanay ninkan taksiilo u ahay Australia ayuu taksiilo ku ahay safaaradda wuxuu ka dhigtay taksiga uu lahay oo kale ayuu safaaradda ka dhigtay marka safaaraddii oo la rabay inay u adeegto shacabka Soomaaliyeed u adeegto halkay ugu adeegi lahayd maanta ay macnaha ay sameynayso in ay ku dhibaataynayso dadka shacabka Soomaaliyeed halkii looga adeegi lahaa cagsigeeda waxaan ka codsanayaa dawladda federaalka Soomaaliya inaan shacabka Soomaaliyeed dawladnimada aan lagu abiyuusin ayaan ka codsanayaa qofkii la magacaabayo oo loo magacaabayo maxay ahayd matalaadda uu matalaya qaranka Soomaaliyeed uu matalaya loo magacaabayo in laga fiirsada oo macnaha backgroundkiisa dambe la fiiriyaa muxuu ahaa jiray qofkan muxuu ka shaqeey jiray muxuu qaban jiray la fiiriyaa marka haddii aan taas aysan dhicin waxa dhacaysa tan hadda oo kala dhacayso marka waxaan dhihi lahaa haddii xataa ninkan meesha dadka laga baneeyo shacabka laga qabto dhibaatada ku hayo qofka la soo magacaabayo in ay dawladda ka fiirsato qofkaasi macnaha mu qalma qof isku wadi kara ma yahay Axmed Saciid Saalim waa abwaanka waxa ku noolahay Antwerpen aan ku noolahay ku soo dhawaada meel dhahay Brussels Antwerpen caasimada labaad abwaanka waa taqaaniin umada togtagliyan ahay faaradda Soomaaliya waxa ka socota shaqo wanaagsan shaqo fiican ninkii shaqo rabo oo waraaqooyin haas ama waraaqooyin loo dhameeyo isku markii loo dhameeyaa shahaado ama waraaq dhalasho isku markii la siiyaa ama baasaboor 3 usbuuc ka baarana horna waa laga keenaa ama 2 usbuuc si oo safaaraddu ila cagtano marka aad tagtid meesha ku arkaysaa lacagta 180 dadkan waxa ku dhibaato jirta dhibaato 180 ilaa 80 meeqa waay 260 waa baasaboorkii shahaadada oo dhalashada iyo baasaboorka xamala laga doonaa xamala laga keenaa inta Brussels lagu keenaa waa lagu soo baasaboorka waa imaadeen imaaw هول في عنوان صراحة أنا وحين أركي هول في سفارة والجو سودوينا كافيه قحوة كراس في عن فردي في عن قال سيل يقول شقينا أبو محاربته محاربته سفارة هول في عنا كسعتها والله تغير يبرمر كقاعدة قف سفارة قوان سوق حاول دولة حاول كسوق قادوا ماشي العقد دتك مشارة قاتان مشارة لقسيا العقد لقى مشارة لقسيا واحد سفارة وحواي تغير تقاتي بر ما دي بكر قف ممتع لكن حسب أنا مجبور دين قاطوا ديبو شغل واشغال دتك قاركود كملي معك شقيان كملي شقوي ولا شقستا أنت ولا شقستا بين الاسكو شغل ولا شقيان أنا وارك ولا شقستا بسم الله الرحمن الرحيم مجيء وإنجنير ديغو waxaa ahay gudoomiyaha ganacsatada jaaliyadda Belgium maanta safarkii wala tulanay arrimo anaga noogaas horta ka hadlaynay lacagaha badan ee dadka laga qaadana waxa waaye qof walba haday dhacdo lacag badan laga qaado horta waa dhibaato safaaradda waxa la rabaa howlwada wax lagu wada la rabaa wax walba laga masuuliyo dawladda Soomaaliya inay soo dirto safaaradda waa biilkeeda waa inay iyada shaqaysataa inta badan kaaska baxayo wax walba baxayo waa inay iyada shaqaysataa marka waxa lagu hormarinayaa ama lagu sameeynayaa safaaradda dhowr mar ka hadana taas waana kala fariisanay waliba Mr. Yunus uu naga aqbalay inuu dadka kala saaro waliba qaarkood oo kaam ku jiro in hadda korna ay sheegay jeebkiisa inuu lacagta ka baxsho haddana in dadka la kala saaro oo wixii qof safaarad oo kaam ku jirto in guri degan aan loo kala qaadan waa ka balan taas waana ka wadaadana hadana ganacsatada Soomaaliyeed iyo Mr. Yunus safarku waxa kula talinayaa inuu jaaliyad Soomaali oo midaysan oo mid ah oo Belgium iyo Soomaaliya isku xirtay inuu sameeyo taas kula talinayaa
waxaan ku ammaanayaa inuu wax qabtay sida u jeeda aniga qof walba adduunka fikir uu leeyahay adduunkana mucaarad iyo mu'ayid buu leeyahay ninna wax muu mucaaradan ninna wax buu ogolaadaa marka qof walba oo wax loo dhiibana way yeelanaysaa dad hor yimaada marka aniga qof walba raaligiisa waa u deynayaa safaaradda lacagta la siiyo oo ay qaado waa in lacag loogu daraa hadda qayb dambe oo dhismo dambe ay bilaabi rabtaa safaaradda oo la jaray oo jardiintii la jaray oo soo aragna maanta ninkan qaybtaas dhismo la bilaabi rabaa hoola laga qaban rabaa maxaa lagu qabanaa aniga hal sano Turkiga soo joogay hal sano Greega soo joogay 2 sano 5 sano Belgium aan joogaa caruurteedu 7 sano ma arkin wax dhibaato baahan wax faa'iido ahna kuma arkin Belgium rafaad kala kulmay marna waa lay buriyaa jidkaan seexdaa marna kaamal lay geeyaa marka aniga qof hooyo ah oo kolestarool qabto oo tayrood qabto in lay bixiyo oo jidkaas lay seexiyana waa ka xumahay marka safaaraddeeda Soomaaliya waxaan jecelahay inay wax ii qabato baasaboorka sida ugu fudud ay ugu siiso ay ii soo dhamayso 5 sano qofta la diiday adigu waa fahmi kartaa dhibaatada ku nooshahay marka wadankayga waa jecelahay waan aadi lahaa laakiin wadankayga waa wadan dagaal ka socdo dhibaatada shal uga soo carraan ay hayso marka bini'aadanimo oo ha ii fiiriso Soomaalinimadeyda wadanka ka imid aniga waxaan ka imid aniga Muqdisho ka imid reer Muqdisho ahay gobol xataa kama imaanin maalin kasta qaraxa ka dhaca Muqdisho marka waa rafaadsanahay Belgiumna banaanka inoo bixisaa waa rafaadsanahay rafaadkaani tahana naga daayo baasaboorkeena waxaan ku nahay baasaboorka hanana siiyo xataa bas aan ku raacnay xataa ameelaha iska sii tagno xataa Talyaani aan iskaga sii aado baasaboorkayga dadaan ku ahay war baasaboorkana siiyo waxa idinka codsanayaa Belgium 7 senti lagu qaataa lacag lagu qaato waxa idinka codsanayaa baasaboorka sida ugu fudud inaa noogu soo bisiin waa taas waa $7 $7 baasaboor may soo bisaa waa maya naga soo gaara dhibaato aan haysato kaamka hadii diidmo nagu soo dhacdo waana bixiyaa ani 7 joor la diiday 7 joor banaanka seexdaa waxaan ay homeless inaan noqdo Soomaaliyin waa ka xumahay shacabka iyo dawladda xiriirkooda wanaaji kara oo shacabka Soomaaliyeedna u adeegi kara si hufan ugu adeegi kara oo aan macnaha musuqmaasuq lahayn waxaan ognahay in hadda ay socoto Soomaaliya ay ka socoto la dagaalanka wax la yiraahdo musuqmaasuqa oo dad badan hadeertaan dabagal lagu haayo aan la socono aad ugu mahadsanyiin musuqmaasuqaas la dirirkiisa waa in ay soo gaartaa anagana soo gaartaa u baahanna oo musuqmaasuq la dirra oo shacabka macnaha meesha lagu dhibaateynayo waa shacabkii taageersanaa dawladnimada taageersanaa waay waxaan bariyaha dambe aan la yaabay Safir Yunis in microphone uu qaatay uu leeyahay hal laga caawiyo gurigi safiirka oo geedo ku baxay in geedaas laga jaran u baahan in laga caawiyo asagoo maalin walba 300 oo qofood lacag ka qaado waliba lacagta uu ka qaado ay tahay lacag sharci darro wax dhaaf ah lacagta xagee aada oo awoodo in uu qabto kambil uu qabto oo hawshaas qabto waliba ay ka badan tahay shacabkiina way cabaadayaan oo wax isxaan looma sameeynayo oo kuma qofkan ku jira iyo qof markaas sharci soo qaatay iyo qof macna la yiri Soomaaliland soo caday iyo qof macnaha la yiri maxay ahayd wadanka dib loogu cina gooham intaba asxaan aan loo sameeynayno wax samafal haba yaraatee shacabka loo qabtan aysan jirin haddana midaan kale laga caawiyo waa wax la yaabo waay waa Safir Yunis waa xishood ka bax waay waa xishood ka bax marka waxa fiican waxaan leeyahay Safir Yunis waxaan leeyahay iimaanka Allah ku geliyo bismillaahir rahmaanir rahiim Safir Yunis hal shay ayaan u soo jeeday laan kula dardaarmi lahaa halka shay oo ah magaceeda Allah subhanahu wa ta'ala oo 99 magaca waxa ku jiro magaca al-adl oo ah cadaalad marka waxaan leeyahay Allah subhanahu wa ta'ala inta ka baqdid ummadda cadaalad u sameey dhibaatada aad ku haysana ka daa waxa waaye haddaad isleedahay maanta cid kula xisaabtamaysa ma jirto bari waa lagu xisaabtamaya xisaab baa ka horeysa wax walba oo samaysana waa lagu su'aali doona maalinta yawmul qiyaamah marka waxaan ku dhihi lahay aan ku sheegay dardaarna si walaaltinimo aan kuula dardaarmay in cadaaladda aad shacabka aad fiirisid una dhibrisid dadka masaakiinta ah ee waxba aan haysan 7 eer qaata kaam ka qaata oo la yiri Soomaaliland soo caday la yiraahdo in macnaha aad u fududeysid waxyaabaha Soomaaliland oo sharci ay ku heli karaan xataa taas u fududeen ku dhihi lahaa cadaaladna sameey ilaahayna ka baq
الله سبحانه وتعالى حلكا ما تلقوا مقعاب الدولة فدرال كسوكو الله هو الحساب تمام سفارة وحقبت لا وجيدا بني آدنا اللي هي wax walba wala sameyn karaa laakiin qof walba oo Soomaaliya sameeyo waxa uu dambeeyay god ku jilco in la geeyo oo biyo muddo oo biyaha ku cabo qof walba Soomaaliya sameeyo iga horeysa mas'uuliyiin ninka la yiraahdo safiirka kaliya ma wax meesha joogo safiirka waxa wax wanaagsan oo qabto waa loo diidaa Soomaalidu waxay yiraahdaan sadar muuqdo su'aal ka dhan laakiin waxa kula si talin lahaa ama kula dardaarmay safiirka naftirkiisa dadka masaakiinta ka ku jiro inuu u naxariisto oo iyo dadka go home ka loo sameeyo labadaba inuu u naxariisto waa aragtada in Belgium marka ka dhoofaysid oo socota Soomaaliya waxa laga rabaa warqad cunugaada marka inta ka wadaysid waa warqad in safaaradda ay ku siisaa haddii ku siin cunugaada moodi kartid Ingiriiska waxa la dhahaa 170 pound la waa loo waa aragtay dhibaatada ka taagan intan waa for free lacag laan waay safiirka waa loo yeeri karaa waa safiirka waa nin la magacaabay oo wareegto ku yimid inta waa la wici karaa waan la bedelay karaa hadda waxa wacay madaxweynahan uu wici karaa ma aha kaliya in loo wacay in loo bedelayo wax qabad kale iyo waxyaabo kale waayo wali ma iman madaxweynaha Brussels waxa laga yaabaa imaanshaha madaxweynaha oo Brussels imaalaha in loo wacay ma aha maxaa la dhahaa in loo wacay in la qabto oo asii la bedelayo waxa waaye madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud wali ma imaan meeshan oo Belgium ma imaan Brussels waxa laga yaabaa bartikolka in loo wacay iyo waxyaabo kale oo madaxweynaha maadaama wadda America jiro marka ku soo noqdo inuu Belgium ku soo food leeyahay ee la taanay marka meesha la jooga baale waa jeclaan lahaa in dadka loo daneeyo ummadda Soomaaliyeed loo daneeyo dhibaatada haysata qof soo tahriibay ama soo kacay oo maanta ama meel intuu iska dhiibay aan u gudbi karin meel kale marka la yiraahdo haye inta lagu qabto soo cadeey Soomaalinimadaada keen wax cadeynaya keen qaar ama badaha ama meelaha kale ama xuduudaha ay ku xaniman yihiin marka waxa fiican wixii marka ay qabasho ay awoodooda in loo qabto way wanaagsan tahay oo Soomaalinimada la eego baahida la eego xoog iyo dhaqaalaha la eego taalkaas uga baxaya safaaradda magacaygu waa Maxamed Cabdi Xasan kuna nool Belgium gaar ahaan caasimadda labaad ee Antwerpen inta ii muuqato waa mid aad u fiican wax qabadka bulshadana aad ugu wanaagsan hase ahaatee qof kastaba si uu nool yahay Soomaali waxay tiraahdaa nima rushiga been qarsoon qof kastaba dano gaar ku yeeshaa hase ahaatee marka aniga danteeda ka doonto kala 2016 kan xasuustaa oo la soo adeegay si wanaagsan loogu soo adeegay inkastoo xoogaa marka hore ay iska dhibaato badneed laakiin hadda waxaan u maleynayaa in kastaan wali aan tagin laakiin isbedel weyn uu ku yimid aan rajeynayaa horta maana dhihin isbedelka dambe hadda imaaday laakiin 2016 markaan tagayay si wanaagsan lagu adeegay oo su'aasha la weydiiyo kaliya waxa ahayd meeshaan ku dhashay iyo meeshaan ka yimid iyo lahjadeedu markaas la qiyaasayo بالمثل dadku waxay u tagaan oo kala inay warqado ka doontaan oo kala dhalashada jinsiyadda Soomaaliyeed oo kala ama markaas inay dawladdu ku xujiso kala warqado cadeyn oo keensan qofka inuu Soomaali yahay oo soo cadeeyo qofka Soomaaliga wuxuu doorbidaya markaas inuu qabto meesha uu ku leeyahay safaaradda wallahi aniga tii aan ka hadli karaa waxay tahay tayado kaliya ilaa Soomaalida waxay tiraahdaa marka taada u jeedo oo taada yaani wax qabadkeeda aad dareento aad dadkan ka faalo kartaa laakiin tanteed inkastoo ay tahay malo inaad qof kale tiis ka faalooto ay dib badan tahay dambiga kaaga imaan karo oo yan laga deeriyay laakiin waxa xaqiiq ah inta aniga markii aan tagay su'aashkooda la weydiiyay inay tahay kaliya ma Soomaali baa tahay ha intaad ku dhalato meeshaas wuxuu kale u yiri waxaan ku weydiinayaa lahjadaada lahjadu waxa igu lahjadii yani waxaan ka wadaa markaas hadalkaygu kala ama lahjadu markaas ku hadlo kala ama meeshan ka imaado kala hadalkeedu waxa igu weydiiyay laakiin wax kale hadda la sheegayo ama hadda wax ka yaaba kale oo aan arkay oo toos aan u arkay ma jirto usually way jiraan dad badan oo Norway degan dad Sweden jiro weydiiyo safaaradda ka rabnaa baasaboor oo wiilal Talyaaniga joogo kale dhaho laakiin qof kasta waxa way qomniisa qorto surnay Soomaali tiraada laakiin wax nadarto markaas oo lacag la qaada ama lacag la weydiinayo ama cadad ma jiraan laakiin waan maqlaa laakiin wax cadad markaas aniga nadarto aan dhaho ama maanta kuma qaad kici karo ilaa maqaatiga moogtaay waa inaad wax aragtaa markaas aad maqashaa laakiin maqal wax lagu qiimeeyay aragti wax lagu qiimeeyaa laakiin ma aan arkin shakhsiyadeeda aniga